kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa kamid ah xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka Puntland oo xilka xayuubin lagu sameeyay iyo xasaanada laga qaaday oo ay hanjabaad ka soo saareen. Farmaajo oo wajahaya dabin culus oo mucaaradka ay u dhigeen. Somaliland oo hanjabaad u soo dirtay Yuusuf Garaad oo saacado ka hor madaxweyne Farmaajo xil culus uu u magacaabay. Senator Fartaag oo digniin u diray madaxweyne Farmaajo uguna baaqay inuu faraha kala baxo arrimaha doorashada Jubbaland. Iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo ka degay beledweyne xilli wili hub urursi uu ku jiro General Xuud oo ka gadooday ciidanka xoogga dalka. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. waa habeenimo khamiis ah 3 December ayay taariikhdu ku beegan tahay warkii oo dhan aynu ku horeynay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa xilka xayuubin maanta waxaa ku sameeyay guddoonka golaha wakiilada maamulka Puntland oo dhex tagay guud ahaanba golaha wakiilada maamulka Puntland oo shir gaar ah yeeshay. xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garowe waxaa xasaanada ay uga qaadeen ilaa 8 mudane oo ka tirsanaa xubnaha baarlamaanka maamulkaasi kadib eedeymo culus oo loo jeediyay dhammaan xubnahan. kulanka oo ahaa mid aan caadi ahayn ayaa waxaa ka qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee Puntland kaasi oo golaha wakiilada ka hor aqriyay eedeymaha ka dhanka ah xildhibaanada xasaanada lagala noqday waxaana kamid ah eedeymaha loo jeediyay falal ka dhan ah jibinta xeer hoosaadka iyo anshaxa baarlamaanka maamulkaasi. intaasi kadib ayaa la qaaday cod gacan taaga waxaana u codeysay kalsoonida in lagala noqdo xildhibaanadaasi ilaa 35 mudane. 3 xildhibaan ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqay natiijada guddoonka golaha wakiilada. xildhibaanada xasaanada lagala noqday ayaa si weyn uga soo horjeeday gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxaana ay kala yihiin xildhibaan Maxamuud Axmed Caalim, xildhibaan Muuse Saciid Xasan Jajabshay, Xisaleebaan Faarax Ciise, xildhibaan Cabdiqani Abshir Surato, xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab, xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore, xildhibaan Cabdicasiis Salaad Gacmi Baduugaaye iyo Cabdijamaal Cismaan Maxamed. arrintan ayaa soo socotay toddobaadyadii ugu dambeeyay hase ahaatee qaar ka mid ah mas'uuliyiintan xilalka lagala noqday oo la hadlay warbaahinta waxay ku hanjabeen in Puntland xaaladeeda sidan aysan sii ahaan doonin isla markaana jawaab waafi ah ay ka bixin doonaan xilka xayuubinta lagu sameeyay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda inuu ku dhacay dabin ay u sii diyaariyeen musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee dalka. inta badan marka la eego musharaxiinta tirada ay ka kooban yihiin oo ah 14 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha waxa ay ku faraxsan yihiin dib u dhaca doorashada ku yimid in dalka qalalaasa uu galo. waxaana ujeedadoodu ay tahay inay dareensiyaan shacabka Soomaaliyeed in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku fashilmay xilkii loo igmaday sida daraadeedna ay mucaaradku xaq ku taagan yihiin isla markaana sida ay uga soo horjeedaan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay si sax ah oo aan leexleexad lahayn. inta badan musharaxiintan oo siyaabo kala duwan fikirkooda u cabiray waxay sheegeen in fashilka doorashada wejigii ugu horeeyay ku yimid ay la micno tahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gebi ahaanba uu ku fashilmi karo in doorasho dalka ay ka dhacdo. sidaa daraadeedna haddii 8 Febraayo doorasho la qaban waayo ay mucaaradku iyagu isku tashanayaan dalkana ay badbaadinayaan sida ay hadalka u dhigeen. waxyaabaha dalka ay ku badbaadinayaan ayay ku tilmaameen in dowladda ay u dhisayaan isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin ayay ku eedeeyeen shakhsiyaad weli ku mashquulsan sidii loo marin habaabin lahaa shacabka isla markaana doorashada waqtigeeda ay uga dib dhici lahayd. mucaaradka ayaa u arka guul siyaasadeed dhinacooda soo xigsatay marka loo eego in xilligan doorashada wejigeedii koowaad uu fashilmay gaar ahaan soo doorashada senatarada oo la doonayay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba maamul goboleedyada in si toos ah uga bilaabato 1 bishan aynu ku guda jirno ee December.
Somaliland ayaa hanjabaad u soo dirtay Yuusuf Garaad Cumar oo xil muhiim ah madaxweyne Farmaajo saacado ka hor uu u magacaabay. Yuusuf Garaad Cumar ayaa waxa uu yahay shakhsi saameyn ballaaran iminka ku yeelanaya siyaasadda Soomaaliya kadib markii dhinaca badda cas uu u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la taliya uu uga dhigay. waxaana muuqata in Somaliland ay u aragto in la hoosgeeyay dowladda federaalka Soomaaliya sida daraadeedna ay ku goodinayso in magacaabida Yuusuf Garaad ay la micno tahay dagaal toos ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo qaaday Somaliland. waxaana ay ku hanjabeen in Yuusuf Garaad mas'uulkii ka horeeyay ee iminka wasiir dowlad noqday dagaalka ay la galeen mid lamid ah ay la gali doonaan, isla markaana Somaliland ay weli xaqiijinayso inay tahay dal ka madax bannaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya inteeda kale. waxaana sidoo kale muuqanaysa in Somaliland waraac gaar ah ay ka muujinayso xilliga dowladda oo gabagaba ah iyo xilkan oo la magacaabay, isagoo war uu ka soo saaray Yuusuf Garaad waxyaabaha uu qaban doono uu diiradda ku saaray inuu dardar gelin doono howlaha la xiriira dhinaca badda cas ee dowladda federaalka Soomaaliya muhiimka u ah, taasi oo loo maleynayo in Somaliland saameyn xooggan ay ku yeelan doonto haddii Yuusuf Garaad uu ku sii dhiirado inuu dardar geliyo howlaha la xiriira dhinaca badda cas. Senator Fartaag oo ka mid ah senatarada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa waxa uu digniin u diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo uga digay in uu faraha kala baxo arrimaha gaarka ah ee doorashooyinka maamulka Jubbaland. Senator Fartaag ayaa sheegay in 60 maalmood wax la eg ay madaxweyne Farmaajo u hartay, isla markaana laga habboon yahay in dagaal uu ku macsalaamiyo dadweynaha reer Jubbaland. wuxuu sheegay in adeerkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kasta uu la hadlay, isla markaana uu ugu baaqay inuu ka haro arrimaha la xiriira Jubbaland, laakiin Farmaajo uu si gaar ahaaneed u ugaarsanayo dadka reer Jubbaland, taasi oo uu nasiib darro ku tilmaamay. waxaa sidoo kale soo baxaysa in Fartaag uu la qiimo yahay oo fikirkiisa uu aaminsan yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalin ka hor go'aan xooggan ka qaatay xaaladda siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku hirgeliso doorashooyinka ka dhacaya deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaan dhinaca Garbaharey oo dood xooggan ay ka taagan tahay. hoggaanka Jubbaland waxa ay ku doodayaan maadaama Garbaharey gacantooda aysan jiri karin sabab ay halkaasi doorashada ka dhacayso ku maamulaan. waxaana madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu goostay in doorashadii Garbaharey ka dhici lahayd xitaa lagu qabto Kismaayo ama doorashada oo idilba la iska dhaafo. laakiin waxaa soo baxaysa hadal kale oo dhawaanahanba aad loo hadalhayay, isla markaana siyaasiyiinta ay shaki xooggan ka muujinayeen, kaasi oo ah in ay muuqanayso in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku cadaadinayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidii dagaal siyaasadeed uu ugu qaadi lahaa deegaanada Jubbaland uu ugu tilmaami lahaa goob ay haystaan cadow una baahan in laga xureeyo. inta laga xureynayana aysan halkaasi wax doorasho ah oo ka dhici karta aysan jirin. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya Generaal Mukhtaar ayaa ka degay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan oo maalmihii ugu dambeeyay xasilooni darro siyaasadeed ay ka jirtay. warar soo baxaya waxa ay muujinayaan in Generaal Mukhtaar ujeedada ugu weyn ee halkaasi uu tagay ay tahay sidii xal waara oo siyaasadeed looga gaari lahaa gadoodka uu sameeyay Generaal Xuud oo duleedka Beledweyne ku sugan, isla markaana halkaasi ku urursanaya. Generaal Xuud waxa uu ka soo horjeedaa nidaamka lagu dhisay maamulka Hirshabelle, sidaa daraadeedna wuxuu ku hanjabay Cali Guudlaabe Xuseen madaxweynaha maamulka Jubbaland haddii uu ka soo dego garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne in rasaas uu kala hortagi doono. jabhad ayuu samaystay, ciidamo u gaar ah ayuu diyaarsaday, hub fara badanna waa uu haystaa, isagoo horey uga mid ahaa ciidanka xoogga dalka, iminka si gaar ahaaneed ayuu u doonayaa in uu ku dagaalamo. wasiirka arrimaha gudaha ayaa la fahansan yahay inuu ka ergeynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana uu doonayo inuu ku qanciyo generaalka gadooday in xaaladda uu dejiyo, isla markaana uu aqbalo Hirshabeellada iminka dhisan dhinaciisana uu ka raaco ballanqaadyana loo sameyn doono.
beledweyne waxa ay martigelinaysay dibadbaxyo rabshado wata, dilal halkaasi ka dhacay iyo xaalado kacsanaan oo ka soo cusboonaanayay iyadoo ay ku soo dhawaadeen maleeshiyaadka jabhadda ee Generaal Xuud uu hogaamiyo garoonka Ugaas Khaliif, halkaasi oo ay sheeda kala socdaan cidii soo dagaysa iyo cidda ka dhoofaysa. waxaana la aaminsan yahay in Generaal Mukhtaar uu ku qancin karo ninkan in xaaladda uu ka tanaasulo isla markaana ugu yaraan ballanqaadyada loo sameeyo uu qaato. maadaama ay isku heeb yihiin waxa xaaladda ay noqon kartaa mid si hoose loo dejiyo. warkii caalamka oo aad kala socoteen Haga Media waa naga inta. waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena. fadlan muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale si guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku sugan ay u helaan warbixin sax ah oo ku saabsan gudaha iyo dibadda dalka.